بسم الله الرحمن الرحيم نبضي داوضي الميل كستوات جوتان باكسو دوادا تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لان وحان قصبنا هاي حرمتها دالكاني بيلشمكا براسليس oo aan kula kulmay danjiraha Somaliland oo fadhiya dalkani Ingiriiska oo isaguna kamid ahaa waftigiyaalka soo gaadhay ambassador Ali Aadan Cawaale marka hore aan Ali ku soo dhaweeyay barnaamijka soo dhawow waan dhawahay aad mahadsantahay wariga adiga mudan waxaan jecelahay inaan ambassadorka bal ka wareysto khusuusan arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah dhanka kale arrimaha shirki shalay toole halkan ka dhacay oo ahaa ku taariikhiya iyo bal nuxnuxda bariyahan soo baxaysa ee sheegaysa in siyaasadda arrimaha dibadda wax iska dhimeen inuu ambassadorku wax nooga iftiimiyo aan ku bilaabay mudane bal marka hore waxaad nooga warantaa shalay toole wixii taariikhiga ahaa halka ka dhacay xarunta baarlamaanka Yurub halkii uu ka bilaabmay boqorta uu bilaabmay iyo kulli waa arrin taariikhi ah bal halka uu ka soo qorboltaay oo ka soo baxay aad baad mahadsantahay aad baan u salaamayaa ummadda reer Soomaaliland meel ay joogaanba oo hormood ka yahay madaxweyne Axmed Maxamuud Silaayo iyo golihiisa xukuumadda iyo hoggaanka dadka reer Soomaaliland meel ay joogaanba salaam baan horta marka hore halkan u marinaya aniga fursadda ka faa'iideysanaya hawshan aad i weydiisay halkan shalay ka dhacday taariikhiga ahayd sida aad u sheegtay waa hawl runtii ka soo bilaabantay ama ka dhalatay shirweynihii caalamiga ahaa ee ganacsiga iyo maalgashiga ee aynu ku qabanay waddanka Ingiriiska bishii Oktoobar 14 sanadkii dhaafay shirkaasi wuxuu ahaa shir weyn oo soo kordhiyay Soomaaliland sumcad ballaaran iyo in ay Soomaaliland bartaan dad fara badan oo aan hore xogagaal ugu ahayn kastoo laga yaabo magacaanu yaqaaneen waxaynu qabsanay iyo soo bandhigidii weyneyd ee lagu soo bandhigay Soomaaliland khayraadkeeda Soomaaliland nabadeeda Soomaaliland jiritaankeeda iyo taariikhdeeda ayaa horseeday in dad badan oo kulanka lagu soo casuumay oo ka soo qayb galay maalinta fadhiyay inay u soo joogsadaan oo ay il gaar ah ku eegaan qadiyadda Soomaaliland maalinta dadkii ka soo qayb galay waxa kamid ahaa kamid golaha baarlamaanka waxa kamid ahaa niman badan oo kamid ah baarlamaanka Yurub kuwa Ingiriiska kuwa dawladaha kale Suuriya ku jira dalka halkii bay ka dhalatay waxa markaa noo suura gashay iyada oo aanu adeegsanayno wax kasta iyo cid kasta oo muwaadiniinta Soomaaliland ah oo wax ka tari karta dadaalka loogu jiro qadiyadda Soomaaliland waxa halkaa ka soo baxay inuu aqoonyahan iyo ganacsade weyn oo reer Soomaaliland iskaaya baray niman ay xiriir ganacsi markii hore lahaayeen oo ku xidhan dawladda Ingiriiska iyo xildhibaano badan ganacsadahaasi waa Cabdulqaadir Xaashi Cilmi oo aanin runtii aad iyo dalkiisa iyo dadkiisa loogu adeega nimankaas oo Cabdulqaadir halkaas u baray ayaanu xiriir halkii ka sii wadnay xiriirkii ayaa waxaanu ku heshiinay oo isla garanay oo isla soo qaadnay in bal ay suuragal tahay qadiyadda Soomaaliland in laga gudbiyo heerka Ingiriis oo la gaarsiiyo heerka Yurub kulankii halkaa ka dhashay ayaa hawsha guddigu ahaa marka waxa la soo gaaray sidaan sheegay maalintii muhiimka ahayd ee loo ballansanaa oo ahayd shalay bisha January 20keeda oo ahayd maalintii loo mudeeyay inay qadiyadda Soomaaliland dhex timaado baarlamaanka European Union ama midowga Yurub si wanaagsan u dhacday runtii hadii goobjoog baad ka ahayd laakiin waxaan u sheegay dadweynaha reer Soomaaliland in aanu shalay gaadhnay guulo waaweyn oo ah in qadiyaddeena si aan gabasho lahayn loogaga hadlay oo ay u soo bandhigeen waftigii ka yimi waddankeena ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda isagoo ahaa wasiirkii hogaaminayay munaasabadda wasiirka qorsheynta qaranka wasiirkii hore arrimaha dibadda isla markaana ah gudoomiyaha hospitaalka Adna oo ahayd Adna Aadan iyo ganacsada Cabdulqaadir Xaashi oo intuba hadallo qiimo leh halkaa ka soo jeediyay iyo dabcan dad badan oo kale oo muwaadiniin iyo cid kalaba leh waxa isna mahad gaar mudan xilli
xildhibaankii hormoodka ka ahaa inay arrintani Somaliland u suura gasho oo ah xildhibaan maanta sharaf iyo magac weyn ku dhex yeeshay dadka reer Somaliland waa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee Yurub oo Ingiriis ah oo la yiraahdo mudane James Carver waa ninka mishiinka ahaa hawshan la waday bilow ilaa dhamaad maantana diyaar u ah inuu inala sii wado ilaa inta aynu aqoonsiga ka gaarayno si wanaagsan bay shalay noogu dhacday markii dambe kulamo badan ayaa iyaguna dhacay jim dabcan waxa la shaqeynayay مسؤولين بدن جيم طبعا waxa la shaqeynayay mas'uuliin badan oo ay kamid yihiin gacayaashiisa oo aan ka taaban karo lawyerkii caalamiga ahaa ee soo bandhigay xaqa ay Somaliland u leedahay ee sharciga ah inay gooni isu taagto iyadoo cidna uga martiyahayn waayo Somaliland sidoo halka ka cadeeyay waxa weeye dal la aqoonsaday 35 dal aqoonsadeen 1960 iyadoo wali Soomaaliya gacanta gumaysiga ku jirta sida awadeed Somaliland aqoonsi imika ma rabtay waxay rabtaa wixii ay lahayd ay la soo noqotay inay dunidu qirto ay rabtaa lawyerkaas oo la yiraahdo Michael Greaves oo ahaa nin ka mid ah markii hore qolada lawyerada caalamiga ah ee maxkamadda Hague markaa ka shaqeeya halkan midowga baarlamaanka Yurub laftiisu sidii uu soo bandhigay ayaa cadeyn dhaba u noqonaysa cid wal oo u shaki kaga jira qadiyadda Soomaaliya waxa kale oo jira mas'uuliin kale oo isaga la shaqeeya oo ay ka mid ahaayeen oo ka xusi karo madaaladin ah dal wada hawsha gacantana nagu lahayay intii ay hawsha soo socotay oo la yiraahdo Stephen Atkinson Stephen waa nin reer Somaliland aad ula dhaqmay waa nin yaqaan wadankeena waa nin muddo ka soo shaqeeyay waa nin runtii og isagu xaqiiqada wadankeena ka jirta isagana waan u mahadnaqayaa waxa kale oo u mahadnaqayaa dhammaan saxaafadii iyo muwaadiniinta reer Somaliland ee reer Belgium ee sida fiican halkan waftiga iyo anaga loogu soo dhaweeyay waxa kale oo iyagana aan xusaya inaan ahayn shirkaasi shir xisbi gaari watay inkastoo hormood ka ahaayeen shirka teamka UK halkan haddana waxa ka mid ahaa dadkii sida wanaagsan oo hadlay ee qaybta libax ka qaatay mudanayaal laga soo doorto labada xisbiya kale oo ka xusi karo mudane Charles Tannock oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda ee midowga Yurub dadkaasi dhammaantood si aad iyo aad u xoogan ayay nogala shaqeeyeen arrinta waxaanay ballan qaadeen inay sii wadayaan oo ay hawshaasi noqon doonto mid maanta bilaabantay insha Allah dhanka kale mudane sifiyuugtay waxaa hadda sharaxaad naga sii soo dhawaa arrinkii shalay tole ka dhacay Belgiumka xaruntan Brussels ee midowga baarlamaanka Yurub dhanka kale waxaa jirtay iyaduna dadaalo kale oo ay ku wadeen xagga Ingiriiska oo ay jireen in ay dawladaha hoose qaar aqoonsiyo siiyeen Somaliland halka isagana nooga warqay halka uu maray way jirtaa arrintaasi waa arrin jirta inay dawladaha hoose dad reer Somaliland oo muwaadiniin qaali ah ay dadaal galeen kana galeen magaalooyinka ay degan yihiin waxa u horeysay jaaliyadeena reer Somaliland ee wadanka Sheffield oo hawshii koobaad galay kuna guuleystay in dawladda hoose ee magaalada Sheffield oo ah xarunta gobol ka mid ah gobolada Ingiriiska ay Somaliland cod gacantaaga iyagoo kala hadhin ku aqoonsadeen waxay ahayd iftaax wanaagsan waxay ahayd bilow wanaagsan imikana waxa gacanta lagu hayaa magaalooyin kale oo ay ku tala jiraan dawladaha hoose ka dhisan inay qadiyadda Somaliland ilgaara ku eegaan oo ay ka hawlgalaan waxa xusid mudan in toddobaadkiina dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud uu ku casuumay xildhibaanadii hormoodka ka ahaa aqoonsiga Sheffield wadankii Somaliland oo ay maqnaayeen bishii imika bishan January 11 ilaa 18 ay safar ku tageen wadankii iyagoo indhays iyo casuumadii madaxweynaha oo wada socday u tagay iyaga oo markaa soo ogaan doona baahiyaha dalka yaala iyo nabadda dalka taala khayraadka dalka yaala waxay qabanayeen gobolada inta badan oo ay soo mareen
ومكور قبائل سومرين وحنا هدي الله يراه أي نقص نقد دونان يجوا أقونتي هوري سومالا نولها بتكبدنا ولا بنلابن وتا وحنا ينا وليبا أنت راعينا يا وحي بلن قادين إني صوم تانين دونان مقالوين يسكولو iyo ruga caafimaad wadanka ka jira inta yidamaynin halkaas aan ka weydiiyay hal qoliyaha asxaabta mucaaradka ayaa waxa ay sheegayeen oo ku antacoonayeen istayaamaha hawshaas dhacday in aan dawlad hoose oo ictiraaf Somaliland siisaa aanay wax kale mar hadii uu yahay mid caalami ka faa'iideyn marka iyadaan maxaad nooga iftiimin kartaa xaqiiqatan ictiraaf horta waa wax dhexmara dalalka hasa ahaatee waxa la oran jiray talaabo ka bilaabay waxa weeye aqoonsiga shifid markaynu shifid ka hadlayno ingiriis weeye wadanka ingiriis ku taala waa caasimad gobolka iyaga xukuma dawladda dhexe xukuntay gobolka la yiraahdo Lancashire ama ay ka tahay magaalada ku taal iyaga xukuma gobolkaas ay xukumaan Somaliland way ka aqoonsadeen waa dawlad ka jirta gobolkaas iyaga waxa muhiim sida cida qaliilaysa waxa iska dhalisho waxa muhiim ah talaabo waliba meel bay ka bilaabantay waa talaabo ay hore u qaadnay waxa ku xigi doona iyada oo ay dadka halka laga soo doortay cadaadis iyo dadaal kale u gali doonaan siday halka uga sii socon lahayd ee ay golaha baarlamaanka qadiidu gaar lahayd waana loo balansan yahay mas'uuliyadii hawsha hawlgaleen waxay u balansan yihiin inay dadaalka halka ka bilaabo gaarsiiyaan ilaa dawladda oo ay dalka Ingiriiska meel walba taabato waana tubtaayo hadaad la socotay ilaa baraad mustaqi gaadhay sheekada oo su'aalo laga weydiiyay waxay noqotay markaa wax lagu sheekaysto waana qadiyada Soomaaliland waxyaalaha ay u baahan tahay waa in la hadlayo oo hadii lagu hadalhayo wax badan baa laga ogaanaya wax badan oo maanta laga ogeyn baa laga ogaanaya si waxa badan loogu ogaadan waxay dhaqaajisay hadalhaynta Soomaaliland waxa jira maanta dad intii badan inshallah iyo wallah oo reer Ingiriis ka warhaya garanaya maanta qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliland waxay qabsatay iyo sidoo garanaya ayaa jira marka ninka leh اعتراف دولة حاب حساب وهنتي لكن دولة الحقيقة لفتها واحد ليس دولة هوسة ودولة الحوالة توفتا هو هوسة يجا بربا لو توفتا مركا هذي بيس يعني كسر اسمه وين دولة هوسة كسر بلونه إنه صاروا صوصوا وين جاري إن هذا إن شاء الله maxay ka tari karaan arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo arrimaha dibadda la yiraahdo isboortiga oo kale mar haddii arrimahaas oo dhan ay yihiin arrimaha jiraale Yurub dawladaha hoose qabtaan طبعا wax badan aniga kula imika waxa ay soo mataaneenayaan goboladii bay tageen baahiyaha ay soo eegayaan baahiyaha halka ku soo arkaan waxay doonayaan inay keenaan iyagu de shakhsi u qaban maayaan waxay ku soo celinayaan xaruntoodii bay ku soo celinayaan mas'uuliyiintoodii bay ku soo celinayaan maamulkoodii bay ku soo celinayaan dabeedna waxay ka shaqeynayaan sidii ay isugu xidhi lahaayeen dalka Somaliland iyo dawladooda oo halka wada shaqeyn cusub ka furanto waanay insha Allah bilaabmaysa sida ugu dhaqsaha waxa aynu ku jirnaa mudane Zafir guntii iyo gabagabadii barnaamijkan aynu ku qabanay hotelka ay degnaayeen waftiga oo aan kula kulmay Zafirka ugu dambeyntii waxaad ka soo sheekaysay shirkii shalay ka dhacay arrinkii dawladaha hoose ee Ingiriiska waxa muuqda in horumar fiican laga sameeyay dhanka siyaasadda arrimaha dibadda halka ay jirtiin nuux oranaysa in qoliyihii Soomaaliya ee Ingiriiska ahayn ay naga horeeyeen bariyaha laga duwaala dheeraadeen bal dadka shacabka ah iyo mucaaradka u dhiisay adoo ay aqal celinaya arrinka isaga horta runtii wax lagu qoslo weeye in la yiraahdo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa ka horeysata Soomaaliya horta Soomaaliya siyaasadeeda adna wad ka dheersantahay anna waan ka dheersanay dadkeenuna way ka dheersanayeen iyada waxba ka gali maayo oo ku talaxtagi maayo ama ka hadli maayo laakiin waxaan sheegayaa halkan siyaasaddu waa diblomaasiyaduna waa diblomaasi hadda aad maqasho ama diblomaasiyad aad maqasho wax badan oo aan la saafin oo aan la sarin baa ku jira waayo si aanay gacantaada uga bixin taladaadu ama aanay cid aana doonaynin inay hawshaada farageliso u faragelin inaad diblomaasi ahaato waxna sheegto waxna qarsato waxna la hadha ayaa muhiim annagu waxaan nahay wasaaradda arrimaha dibadda shaqooyin badan baan dalka u haynaa
wax badan baanu dalka u qabanay siyaasadda arrimaha dibaddana wax badan baanu ka bedelay intii aanu xafiisyada joognay waxaanay ka muuqataa dadaalada aad arkaysa kan shalay u dambeeyey kii ugu dambeeyey ganacsiga ee London lagu qabtay kuwa badan baa jira oo aanan ka sheekayn sababtoo ah looma baahnayn inaan ka sheekayno wax walba sheegno bulshadu waxaanu ka rajaynaynaa inay fahanto mas'uuliyaddeedu inaanay ahaan inaanu saxaafadda maalin walba kaga sheekayno hawl maalmeedka iyo waxaanu qabno laakiin hawl wanaagsan oo qurux badan oo qadiyadda Soomaaliland halkay ku socotay u wada ayay wasaaradda arrimaha dibadda gacanta ku haysaa dadweynaha reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa oo aan halka uga cadaynaya haddaan anugu ahay mas'uulkii u joogay dowladda Soomaaliland dalka Ingiriiska dalkaas Ingiriiska xiriirkeenu u leenahay si wanaagsan u socdaa hawlaheeduna maaha hawlo loo dayacay waxa Soomaaliya iyo Ingiriis ka dhaxeeya way ka duwan tahay si toos ah oo gaar ay shaqadu noogu socotaa cidna taa ka qarin mayno waa wax jira laakiin shaqada noo socota dambidan halka ku fahmaynayna waxay u baahan tahay wax waliba in ay yeelato wax guud oo dadka la wadaagi karo iyo wax gaar ah oo u gaar mas'uuliyiinta qabanaysa iyo dawladda marka waxaan leeyahay axsaabta iyo siyaasiyiinta reer Soomaaliland kalena walaalayaal qarannimadu waa shayga aynu axsaabta ku noqonnay waa shayga aynu madaxweynayaal ku noqon doono horena ugu soo noqonnay waa halka aynu wax ku nahay qarannimada inaynu iyada dhisno iyada u midaysnaano iyada u dadaalo oo ay noqoto wax ka reeban in aynu criticize garayno qarannimadu waa muhiim qarannimada waxa ka mid ah ciidamada qaranka qarannimada waxa ka mid ah hay'adaha xukuumaddu leedahay golayaasha ka mid qaranka waxa ilaaliya waxa weeye ciidamada nabadgelyada waxaan markaa u baahanahay in qaranka laga jiro dhaawaca iyo wixii dhaawacaya waxaynu u baahanahay qaranka in si guud loo wada ilaashado haddii kale saaxad aynu ku tartanaa ma jirayso haddaynu inagu qaranka dhaawacno ninka berito doonaya inuu madaxweyne noqdo waxaanu kaa codsanaynaa inaad siyaasaddaada ka reebto wixii duraya dhidibada adag ee qarannimadu ku taagan tahay ee ay kow ka yihiin ciidamada qaranka noocay doonaan ha ahaadaan waxaa jirta niman siyaasiyiina oo mas-uuliyiina oo ciidamada qaar saxaafadda ku cambaaraya ama ku dhaleecaya iyaga oo aad moodo inay isleen dowladda gobolka dhaliya waa qaladkaasi ciidanku hadduu nabadgelyada qaranka oo xasaasiya bay mas-uulkiina hadday wax yaroo salogtaan yimaadaan xukuumad iyo mas-uuliin iyo dad hawshaa ka mas-uula baa jira ha lagala xaalo waxa laga weydiiyo siday wuxuu dhaheen ha la isweydiiyo taladuna waynu wada leenahay soo gudbiya iyada oo tala ah una gudbiya cid ay khusayso laakiin inaan shisheeye ula tegin inagoo dhaleecaynayna ciidamadeenna iyo rukumada adeega Soomaaliland taagta waa gartay idan jiray tii ugu dambeysay ma haytay su'aal balse waa fariinta aad gaarsiinayso ama midka aad leedahay dadkii reer Soomaaliland ee Ingiriiska ka timi iyo dadka reer Soomaaliland ee kale ee wadankii joogay iyaguna ku daawanaya iyo bal midka aad maanta qoranayso waxa arrin wanaagsan weeye waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland anoo kala saaray qurba joog iyo qaran joog hadday gudiga joogaan hadday dibadda joogaan hawl culus baa inoo tahay wax badan baa inoo qabsoomay wax badan oo ku faanayno qabsanay hawsheenu wali guushii kama dambaysta ahayd way ina sugaysaa inaynu ka midho dhalino fiktii baynu saarannahay fiktaasaynu saarannahay fiktuna marka aynu tallaabada u dambaysa saarno ayaynu guusha xusi doonaa waxaan ka codsanayaa meel ay joogaan dadka reer Soomaaliland inay ilaaliyaan wadajirka inay ilaaliyaan sumcadda qarannimo inay ilaaliyaan danta guud oo ah ta aynu wax ku nahay waxaan leeyahay aqoonsiga Soomaaliland ee aanu maanta halkan u joognay ee shalay halkan u joognay ee aanu muddada ka soo shaqaynaynay waxa loo doonayaa waxa weeye inaynu dunida ka mid noqono si aynu dunida uga mid noqono waxa loo baahay marka hore inaynu naga aqoonsano inaynu qarannimada ka dhigno wax ka reeban inaynu nagu duxo siyaasadda Soomaaliland waxa waajib ku ah inay noqoto mid bisil siyaasiyiintuna qaar bisil waxaanu aad iyo aad u jecelahay haddaanu nahay mas-uuliyiinta howlahan ka shaqeeya dibadda jooga weliba inaanu aragno dadkaygoo midaysan
inaanu aragno dadkayga meel u wada socda inaanu aragno mararka qaar marka mas'uuliyiinta qaranku howlaha qaranka ku jiraan iyadoo loo midaysan oo la daba taagan waayo ninka mas'uulkii haddii aan taageerada shacabka oo uu ku kalsoon yahay ka dambeyn oo aanu isku hubin hawshiisu waxay noqonaysaa wax kala dhiman ama uu dareen qabo dareen qabaya mas'uulku waxaan jecelahay oo aan dadka kula dardaarmaya inuu noqdo dareen kalsooni ah waayo maanta sidaynu sheegaynay aynu ilaa shalay ka hadlaynay wada hadallada bilaabmaya bisha dambe ee Soomaaliya laga galayo hore u soo socday inta badan ee imika la go'aansaday in la mudeeyo oo waqti loo sameeyo oo waqti ay ku soo gabagabaan si ay nooga dhamaato hawshooda waxaa loo baahan yahay wafdiga iyo mas'uuliyiinta xukuumadda ee halkaa tagaya in gacan buuxda la siiyo mar walba gacan buuxda la siiyo taageero la siiyo inaan la sii dhaleecayn marka ay amba baxayaan inaan la odhan hebel baa tagay oo hebel baa laga reebay inaan la odhan cid gaar ah iyo xukuumadda isku koobtay xukuumaddu iyada dalka maanta xukunta berina xukuumadda kale timaada xukumi doonta marka waxaan jecelahay inaynu marba cidda talada inoo haysa aynu taageero buuxda siino si ay uga madhaliyaan oo ugu mashquulaan sida inoogu dooni lahaayeen wax aynu doonayno يعني إنك إنه مشغول دتكين مسؤولين يعني دتك هذا كم مشغولين هكون مشغولان ضنطة مقن إلا دبع صعود إلا دبع علينا تاسع مهمة إلا صور عيو إن صلاة ذيك الشيء لقى صاروا وعلى إنه هاي ناتبتي جعل هاي وكوكب الجبينة يعني إنك يقرأ عليه وانديري دتك رسم الآن ولا ليال ويدود هاي بيتكي ها الله يرحمه ما صدق هاي هاي دلعدنا ما ديره نينا دلعدنا ما ديرني من كبد درين قبل إنه دين كم مقية هي أيام دونا لو بكرين وردين باينا كم قرن أين دونا لأنه بس دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال كاسي وحا وهاد انشرها دا وضيال كاسي وحا وهاد انشرها سومالي لاندو فردية دال كان إنجريسكا أمباسطور علي آدن عواله ويقول رميي أرمو خصوصا بتعلقات أنك أرميها الدبدة وجمال عبد إبراهيم تلفزيون كقرة جمهورية الصومالي لاند مقالة براسلس